munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalin jabinayeen dufcaddii 8aad ee dhamaysatay heerka koowaad ee waxbarashada sare ee jaamacadda Nugaal University ee magaalada Laascaanood ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadda Nugaal waxaana ka soo qayb galay maamulka macallimiinta jaamacadda wasiiru dawladda wasaaradda beeraha Soomaaliland gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood mas'uuliyiin ka socda jaamacadda IU waddanka Uganda gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka Sool waalidiin ardayda iyagu qalin jabinayay marti sharaf aad u tiro badan waxaan ugu horeyntii hadalka u baxay gudoomiyaha jaamacadda Nugaal University Professor Cabdirasaaq Maxamed Aadan Lafoole iyagoo ka sheekeeyay marxaladii kala duwanaa ee jaamacadda Nugaal soo martay iyo sidoo kale waxqabadka iyo horumarka jaamacaddu ku tallaabsatay muddooyinkii ugu dambeeyay jaamacadda Nugaal oo laga joogo aasaaskii 12 sano waa maalin ciida oo barakaysan waa soo dhaweyntii ardada cusub waa farxadda digriga maanta aad qaadateen inuu hore u sii socon doono oo ay la joogaan jaamacadda islaamiga fi Uganda IU Islamic University in Uganda jaamacaddu waxay tababar u qabatay ardada foorfoorka markay soo gaaraan in duruusta loogu celiyo oo ardayga naxdinta imtixaanka laga baabi'iyo sanadkii ka horeeyay sanadkana waa garan kartaa ilaa iyo 56 arday inay dugsiga Muuse Yuusuf ay keeneen sanadka 6 sano ka horeeyay garaad wax keenay ma ayna jirin gobolka markii arrinkan la ogaanay ayaanu isu xilqaanay dhibaatadu maxay tahay kadibna waxaa loo sameeyay daraasad ardaydii kadibna waxaa lagu guulaystay hal iskuul kaliya inuu 56 uu keeno xiriirkeena gudaha ee jaamacadaha garaad jaamacaddu waxay ku jirtaa 13 jaamacadood oo aqoontu ilaa qabyaalad ma leh dhammaan Soomaali weyn ka kooban oo ilaa Kismaayo ilaa Boosaaso ilaa iyo Boorama inta u dhaxaysa ugu tayo fiican oo la isku dhaho jaamacadaha isu taga dhinaca cilmi baarista maadaama aqoontu ayna lahayn border iyo siyaasad oo la isu furayahay mas'uuliyiin ka socday jaamacadda IU ee waddanka Uganda maamulka heer gobol iyo kan degmada wasiiru dawladda wasaaradda beeraha Soomaaliland oo dhamaantood hadalka u kala dambeeyay ayaa ugu horeyn u hambaliyay ardayda iyagu maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Nugaal University iyagoo dhinaca kale kula dardaarmay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Nugaal inay halkaasi ka sii wadaan dadaalka ay ugu jiraan inay bulshadooda ka saaraan jahliga First of all, I want to congratulate the students. I also want to congratulate their parents. I want to congratulate the university academic staff and non-academic staff. waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan leh ee sida wanaagsan loo soo agaasimay ay ku qalin jabinayaan ardayda kulliyada kala duwan ee jaamacadda Nugaal waan soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay waan idin ducaynaynaa waxaanu idin leenahay ilaahay idinku anfaco cilmiga aad baradkeen waxaan halkan uga mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda oo maanta horumarkaaynu aragno iyo quruxda aynu ku faanayno halkaa soo gaarsiiyey waxaan kaloo halkan rabaa uga bushaareeyo shanta arday halkan laga istaajiyey anigoo intaan halkan joogay la tashaday wasiirka xanaanada xoolaha iyo wasiirka madaxtooyada labadooda soo salaamayay xukuumad ahaan waxaan ballan qaadanaa sanadka soo socda haddii aan la idmo inaan ku darno shaqaalaha dowladda waa shanta arday ee beeraha iyo xoolaha garaadka guud ee gobolka Sool garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale oo hadalka soo afmeeray ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ardayda iyagu haatan qalin jabinaya waxaana uu garaadku dardaaran dhinacyo badan taabanaya u soo jeediyay ardayda iyo maamulka jaamacadda Nugaalba waxaa farxad weyn maanta inoo ah inagoo maalin ciida inaynu halkan ka qalin jabinay 6 kulliyadood oo jaamacadda Nugaal University runtii anigu maanta aad baan faraxsan 3 sanadood baan hadda idinla joogay xilligii halganka ka bacay waxaan u malaynayaa nin walba CV-gu wataay innaga halkaa dhignay oo dareenkii loo baaro wararka halkaa wada joogo taa intaasaan kaga baxaya maalintii koowaad jaamacaddii Nugaal University laga qalin jabiyey difcadeedii 6 waan joogay
tii toddobaadna imaaraadkan ku maqnaa aad baan uga xumaa tii sideedaadna waa joogaa waxay maanta ila dhigan tahay maalin aniga ay soo marto oo ii gaara gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardayda iyagoo qalin jabinaya iyagoona dareenkooda farxadeed la wadaagay warbaahinta. magacayga waxaa la yidhahdaa Suur Cali Cumar waxaan ka qalin jabiyey kulliyadda Community Development and Leadership ee jaamacadda Nugaal run ahaantii maanta dareenkayga farxadeed ma qiyaasi karo aad baan u faraxsanahay. magacaygu waa Najix Umar Axmed kana mid ahaa ardayda Community Development and Leadership ama hogaaminta suban iyo horumarka bulshada runtii maanta farxad weyn bay noo tahay dareenkaygana ma qiyaasi karayno inaan joogno guushii dadaalkaygii aan in badan soo samreynay ma qiyaasi karayno dareenkayga farxadeed lama ciidood bay soo kaya koray. munaasabadan oo ay mid ka duwaneed munaasabadihii hore isla markaana ay ku qalin jabinayeen in ka badan 100 arday oo dhamaysatay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Nugaal University ee magaalada Laascaanood ayaa ku soo dhamaatay jawi degan. Samiir Saciid bila telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho Laascaanood.